Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Muuse Biixi Cabdi oo dadka qaar ay ku tilmaamaan hogaamiye adag ayaa muujinaya xukun jecel xad dhaaf ah adayga siyaasigu isku sifeeyo ama dadka qaarkii ku tilmaamaan wuxuu mararka qaar noqon karaa mid dumaya nidaamka. Xaaladda ka soo cusboonaatay Somalilan waa kuwo cabsi iyo culays leh. Baaqyada beesha caalamka ayaa dhammaan qancin waayay Muuse Biixi. Muuse hadda wuxuu u jeedaa culayska waxa hareerihiisu ka socdo. Arrinta laascaanood ayuu bilowgii hore afqaban waayay, taasi oo gaartay heer aanay gaarin weligeed. Hadda waa xaalad kale oo la afqaban karo, laakiin hadduu nidaamka Biixi ku wajaho siyaasad xumadii ay ku wajaheen laascaanood, waxay dhalin kartaa foolxumo kale. Tallaabooyinka ka soo cusboonaaday deegaanada Somalilan waxay Muuse Biixi kala doorsiinayaan colaad iyo caafimaad, burbur iyo badbaado, dagaal iyo doorasho, ama dan gaar ah iyo dan guud. Dhinaca uu Muuse Biixi gacanta u taagi doono lama yaqaano, laakiin Somalilan heerka ay maanta marayso ma aanay gaarin tan iyo markii Burco loogu dhawaaqay maamulkan 18 May 1991. balse daawade intaanan warbixintan u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like garayso oo aad u share garayso saaxiibada, sidoo kaleetana aad soo follow garayso boggiina hoggaanka wararka. waad ku mahadsan tahay la socodkaada. Kooxda jabhadda ee sida beelaysan isku abaabushay ee ku jirta buurta gacan libaax ayaa laysay tiro ka mid ah ciidanka booliiska Somalilan. Askar sodomeeye ahayd waxaa ka baxsaday wax 5 xubnood ka yar, intii kale waxay u qabsameen qaar dhintay iyo kuwa dhaawacmay, sida ay xaqiijiyeen xubno u hadlay maamulka Somalilan. Wasiirka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Kaahin waxa uu sheegay in jabhadda gacan libaax degtay iyo duulaankuba inuu ka dambeeyo hogaamiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro. Kooxdan jabhadda ah ayaa ilaa hadda fulisay 4 weerar oo dhammaantood khasaare geystay. Taliyaha booliiska Somalilan waxa uu amar ku siiyay ciidanka booliiska inay tallaabo ka qaadaan kooxda ku jirta buurta gacan libaax. Mar uu ka jawaabayay ciidanka booliiska ee ay jabhaddu laysay, waxa uu sheegay in askarta aanay cadow u arkin raggaasi buurta ku jira, sidoo kale aanay haysan fasax inay kooxdaasi tallaabo qaadaan. Balse hadda waxa uu sheegay inuu bixiyay amarka madambays ah, taasi oo ugu sii dari karta xaaladda. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in xaaladda Somalilan xabad lagu xalliyo. Wuxuu ku baaqay in nabadda la ilaaliyo, laakiin sidaas oo ay tahay maamulka Muuse Biixi waxay sheegayaan inuu Ciro abaabulay jabhadaha. Banaanbaxyo ayaa sidoo kale ka dhacay deegaanada Somalilan qaarkood. Sidoo kale abaabul ciidan ayaa laga soo warinayaa deegaano kale oo isla Somalilan ah. Dagaalada jabhadaha abuurmay iyo banaanbaxyadu dhammaantood waa fariimo lagula hadlayo Muuse Biixi, kaasi oo sanadkii hore ka dhamaaday muddo xileedkii, sidoo kalena doorashadii madaxtooyada ka soo hormariyay midii ururada, si uu meesha ugu saaro xisbiyada hadda la loolamayo. Qaarkood mucaaradka arrintaas ilaa hadda ma ogola. Biixi oo dadka qaar ay ku tilmaamaan hogaamiye adag ayaa muujinaya xukun jecel xad dhaaf ah adayga siyaasigu isku sifeeyo ama dadka qaarkii ku tilmaamaan wuxuu mararka qaar noqon karaa mid dumaya nidaamka. Xaaladda ka soo cusboonaatay Somalilan waa kuwo cabsi iyo culays leh. Baaqyada beesha caalamka ayaa dhammaan qancin waayay Muuse Biixi. Muuse hadda wuxuu u jeedaa culayska waxa hareerihiisu ka socdo. Arrinta laascaanood ayuu bilowgii hore afqaban waayay, taasi oo gaartay heer aanay weligeed gaarin. Hadda waa xaalad kale oo la afqaban karo, laakiin hadduu nidaamka Biixi ku wajaho siyaasad xumadii ay ku wajaheen laascaanood, waxay dhalin kartaa foolxumo kale. Tallaabooyinkan ka soo cusboonaaday deegaanada Somalilan waxay Muuse Biixi kala doorsiinayaan colaad iyo caafimaad, burbur iyo badbaado, dagaal iyo doorasho, ama dan gaar ah iyo dan guud. Dhinaca uu Muuse Biixi gacanta u taagi doono lama yaqaano, laakiin Somalilan heerka ay maanta marayso ma aanay gaarin tan iyo markii Burco loogu dhawaaqay maamulkan 18 May 1991. Dowladda federaalka ee Soomaaliya
ayaa la soo warinayaa inay si hoose u qiimeynayso xaaladaha ka soo cusboonaaday deegaanada Somaliland.